kulantiisan saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel-kan libaaxida geeska qodobada aad kaga bogan doontaan hadii buunuhu qadarana waxa kamid ah dawladda Eritrea oo si degdeg ah Soomaaliya ugu soo celinaysa ciidan tababar ku qaatay gudaha dalkaasi Kenya oo u muuqata in ay guul darrada qiratay war cusubna ka soo saartay kiiska badda wararkii ugu dambeeyay khilaaf ka dhex qarxay madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska ah wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel-kan libaaxida geeska haddii aad nagu cusub tihiin waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta channel-ka YouTube-ka aad naga daawanaysaan libaaxida geeska qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose comment-ga inoogu reeb daawada hagaagaynu ku bilowno dawladda Eritrea ayaa si degdeg ah dalkooda ugu soo celinaysa ciidamo Soomaali ah oo tababar ku qaatay gudaha dalkaasi sida ay shaaciyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ah ee dawladda Eritrea waxaa la qorsheynayaa in si degdeg ah dalkooda hooyo loogu soo celiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku qaatay gudaha dalka Eritrea kadib markii hadalhayn badan ay ka dhalatay tababarkooda inay qayb ka noqdeen dagaalkii ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia oo ay kooxda TPLF dagaal xooggan la galeen ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia mas'uul u hadlay wasaaradda difaaca dalka Eritrea ayaa sheegay in dhalinyaradaas ay tababarku ay dhameysteen keliyana ay u xayiran yihiin sidii dhaqaalihii dalkooda loogu celin lahaa loo bixin lahaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha wali ay ka door sugayaan inay bixiso dawladda Qatar oo bixinaysay lacagta tababarka ku baxayay sidoo kale in ay dalkooda u daadgureeyaan dhalinyaradaas waxa uu ka gaabsaday jiritaanka warka la xiriira in dhalinyaro Soomaaliyeed oo xirada tababarka ku jira loo adeegsaday dagaalkii Ethiopia ka dhacay balse waxa uu kaliya hadalkiisa ku soo koobay in dhalinyarada tababarka dhameysatay dalkooda dib loogu celin doono waxa uu arintan u sababeeyay xaalad adag oo Soomaaliya ka jirta iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo Soomaaliya laga maarmaan u tahay in ciidamadeeda si weyn ay u gutaan mas'uuliyadda xaqiijinta amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka Eritrea waxaa muddo ku dhow 3 sanadood ku maqan dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo tababar ciidan ku qaatay xiro tababar oo ku taala gudaha dalka Eritrea waxaase dawladda federaalka Soomaaliya oo dhowr jeer arintan wax laga weydiiyay ay ka gaabsadeen ka hadlida in ciidamo Soomaaliyeed ay tababar ugu maqan yihiin gudaha dalka Eritrea hase ahaatee mas'uulkan ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dalka Eritrea ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhalinyarada tababarka inay dhameysteen keliyana dhaqaale ay u xayiran yihiin dalkoodana dib degdeg loogu celin doono waxa uu cadeeyay inta aysan bilaaban doorashada golaha shacabka in gudaha Soomaaliya ay ka howlgali doonaan ciidankan isagoona qiray in xitaa hubkii ay ku howlgali lahaayeen ay diyaarisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya haddii ciidankan tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea dhalinyarada Soomaaliyeed dib dalkooda ugu soo laabtaan oo aysan ka maqnaan dhalinyaro la tuhumayo in loo adeegsaday dagaalka Ethiopia waxay meesha ka saari doontaa warar la faafiyo la xiriira in dhalinyaro Soomaaliyeed ay qayb muhiim ah ku lahaayeen dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia waalidiin badan ayaa walaac xoogan arintan ay ku abuurtay qaarkood dibadbaxyo abaabulan ayay ka dhigeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xubno siyaasiyiinta mucaaradka ayaa la sheegay in dana siyaasadeed qaarkood ay u adeegsadeen kiiskan oo u muuqday mid marin habaabin ah dadka falanqeeya siyaasadda iyo tan ammaanka ayaa ku qeexay in dhalinyaradaasi kaliya looga baahan yahay in dawladda Soomaaliya shaaciso halka ay tababarku ugu maqan yihiin ee xilliga rasmiga ay tahay in gudaha dalkooda ay ku soo laabanayaan qabarkan ayaa noqonaya mid farxad geliya waalidiin badan oo caruurtooda walwal ka qaba taas oo la xiriirta xiriir la'aan muddo ku dhow 2 sanadood oo la xiriirta in ay raqi ruux toona ay ku laayihiin caruurtooda oo tababar loogu qaaday gudaha dalka Eritrea tuhunka dagaalka inay ka qayb qaateen ayaa keentay kadib markii xiriir 3 geesood ay yeesheen dawladaha Eritrea Soomaaliya sidoo kale Ethiopia kuwaas oo ku qatama iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha militariga iyo sidoo kale amniga markan hadii aynu waagnana Kenya waxa ay u muuqataa inay qiratay guul darrada soo wajahday war cusub ayayna ka soo saartay kiiska badda oo qayb ka mid ah baddeena ay muran gelisay
dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin haddii si kala dhan ah ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ u xukmiso kiiska badda Soomaaliya, taasi oo ay qiratay inay u muuqato inay dhici doonto. Maxkamadda ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku xaqiijisay in ay ku dhawaaqi doonto xukunka kiiska muranka badda ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 12 bisha soo socotay Oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno 2021. hase yeeshee Kenya ayaa wacad ku martay inaysan aqbali doonin waxa ay ugu yeertay hanaan sharci darro ah oo maxkamaddu ay u martay kiiskan. Waxaan ku soconnaa malo ah in xukunka uu noqon doono mid naga soo horjeeda habka ay maxkamadda u dhaqantay markii la micneeyay ama la qiimeeyay Kenya, oo ay ku jirto inay diiday codsi dhowr jeer ah oo qiil lahaa. waxay noo tilmaamaysaa sidaas ayuuna u sheegay wargeyska Daily Nation sarkaal Kenyan ah oo la hadlay wargeyskaasi. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray tallaabooyin dhowr ah ayaa la qaaday oo dhinaca amniga ah. arrintan waa mid leh cawaaqib amni oo qaranka ah. dalka waa inuu xaqiijiyaa amniga iyo badqabka shacabkiisa. sarkaalkan ayaa sheegay in xitaa Kenya aysan aqbali doonin haddii maxkamaddu ay go'aamiso in dhulka la isku hayo loo kala qeybiyo laba dhinac, sababtoo ah buu yiri waxay ka dhigan tahay in dhul ka mid ah Kenya la dhiibay, sida uu ku doodayo sarkaalkan oo sharciyad ahaan aysan maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ la hortagin oo ay ka gaabsadeen. Kenya ayaa ku doodaysa in maxkamadda ay ula dhaqantay cadaalad darro oo ay ku jiraan codsiyo badan oo laga diiday, sida in garsoore Cabdilqawi Axmed Yuusuf oo Soomaali ah uu iska casilo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Cabdilqawi ayaa ahaa madaxweynaha maxkamadda tan iyo 2018 waxaana bishii Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirno bedelay garsoore kale oo Jana la yiraahdo oo Mareykanka u dhashay. dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh uu dalkan madaxweynaha ka ahaa, kadib markii Kenya ay isku dayday in ay wada xaajood ku qaadato qayb ka mid ah baddeena oo dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ay kaga biyadiiday. markan haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay qaaf xoogan ayaa ka dhex taagan madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa. wararka naga soo gaaray Jowhar ayaa ku waramaya in uu sii dheeraaday khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa, kaas oo ka dhashay kuraas ka mid ah doorashada golaha aqalka sare ee maamulka Hirshabelle. muranka oo haatan cirka isku sii shareeray ayaa ka dhashay 2 kursi oo ka harsan doorashada aqalka sare, taasi oo ay isku qabteen Cali Gudlaawe iyo Yuusuf Dabageed. wararka ayaa intaas ku daraya in isfaham uu ku soo dhamaaday kulan ay yeesheen labada mas'uul, kaasi oo looga hadlayay xalinta khilaafka dhexdooda. ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Cali Gudlaawe iyo Dabageed ay kala wataan 2 musharax oo u wada tartamaya kursiga beesha Xawaadle, waxaana mid kasta uu doonayaa inuu soo saaro musharaxiisa, taasi oo dhalisay khilaafka haatan hareeyay doorashada aqalka sare ee hakadka gashay sabab la xiriira xiisada soo korortay ee u dhaxaysa madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in xalinta khilaafkan ay ku baxeen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle iyo ku-xigeenadiisa oo waan ka dhex bilaabay labada mas'uul. khilaafkan ayaa waxa uu ka sii daray kadib markii ay musharaxiinta qaarkood cabasho ay ka keeneen habka maamulka loo wajahayo kursiga ay damacsan yihiin inay u tartamaan. doorashada Hirshabelle ayaa si habsami leh ku bilaabatay iyadoo si daahfuran loogu tartamay 6 kursi oo doorashadooda lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, sidoo kalena xarun waa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelkan Libaaxida Geeskana waa inaginta aad ku mahadsantiin daawashada warkan mid la caynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.